ciidamada Tigray ee dagaalka kula jira dawladda dhexe Itoobiya ayaa sheegay in ay iska baxayaan gobolada la deriska ah gobolkooda ee waqooyiga Itoobiya. Afhayeen u hadlay ciidamada Tigray ayaa Isniinta maanta sheegay in tallaabo loo qaaday dhinaca xabad joojinta kadib markii uu socday dagaal bahalnimo ah oo socday muddo 13 bilood ah. Hogaamiyaha TPLF ahna madaxweynaha Tigray ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu guud ahaanba ay ka soo baxayaan gobolada kale ee deriska la ah sida Axmaarada iyo Canfarta oo ay hore dagaal lagu qabsadeen xoogagga Tigray. Waxaan ku kalsoonahay in ficilkeena geesinimada leh ka bixitaankeenu uu noqon doono furfurista nabadda, ayuu qoray Debretsion Gebremichael, madaxa xisbiga Tigray People's Liberation Front TPLF oo ah madaxa xisbiga siyaasadeed ee gacanta ku haya inta badan gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala Tigray. Warqad uu diray qaramada midoobay madaxa ugu sarreeya Tigray waxa uu ku baaqay in la sameeyo aag ka caagan duulimaadyada diyaaradaha dagaalka ee Tigray lana soo saaro cunaqabatayn hubka Itoobiya iyo xulafadeeda Eritrea, iyo sidoo kale in la sameeyo hab lagu xaqiijinayo in xoogagga hubaysan ee dibadda ahi ay ka baxaan guud ahaanba gobolkooda Tigray. Dagaalka ka socda dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa waxa uu khalkhal geliyay gobolka Geeska Afrika oo marka horeba taag darna isagoo sababay ku dhawaad 600,000 oo qaxooti ah oo galay wadanka Suudaan iyo ciidamada Itoobiya oo laga saaray dalka Soomaaliya oo ay dagaaladu harakeeyeen, isla markaana ay sababeen in ciidamada wadanka Eritrea ee la jaarka Itoobiya ay u soo gurmadaan jaarkooda Itoobiya. Kumanaan rayid ah ayaa la dilay, ku dhawaad 400,000 oo qof ayaa macluul wajahaya, 9.4 milyan oo qofna waxay u baahan yihiin gargaar cunto guud ahaanba waqooyiga wadanka Itoobiya ee colaado ay ka jiraan. Hogaamiyaha Tigray waxa uu sheegay in uu rajaynayo ka bixitaanka Tigray ee gobolada Canfarta iyo Axmaaradu inay ku qasbi doonto beesha caalamka inay xaqiijiso in cuntada iyo mucaawinada ay soo galaan gobolkooda Tigray. Qaramada midoobay waxay hore ugu eedeysay dawladda Itoobiya inay wado go'doomin dhab ah oo ay ku cadaadinayso dadka Tigray. Geesta kale, afhayeenka dawladda Itoobiya oo warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso xaaladda degdegga ay ku dhawaaqeen xoogagga TPLF ayaan ka jawaabin dhinacooda waxa ay qaadayaan ama tallaabada ay yeelayaan. Ku dhawaaqista ciidamada TPLF ee hogaamiyahooda Isniinta maanta sida rasmiga ah shaaca uga qaaday ayaa waxa lagu micneeyay ama loo badinayaa inay tahay waxoogaa horumar ah oo laga gaaray waanwaantii ay wadeen Midowga Afrika oo ergey gaar ah u wakiishay xaaladda colaadeed ee wadanka Itoobiya. Dhinaca kale, waxaa la aaminsan yahay in ogolaanshaha degdegga ah ay xoogagga Tigray ku ogolaadeen xabad joojintu inay tahay khasaare badan oo la gaarsiiyay bishii ugu dambeysay TPLF markaasi oo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu tagayo furimaha hore ee dagaalka, isla markaana ciidamada dawladda ee uu hogaaminayay ay guulo waaweyn oo la taaban karo ka gaareen dagaaladii ugu dambeysay ee la galeen TPLF, kuwaasi oo hore gacanta ugu dhigay inta badan deegaanada jaarka la ah dhulkooda ee Axmaarada iyo Canfarta. Balse markii uu dagaalka hogaamiyay isla markaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ay si rasmi ah u qabsadeen magaalooyinkii ugu badnaa ee hore looga qabsaday. Dagaalka ka socda wadanka Itoobiya ayaa dabayaaqadii sanadkii aan ka soo gudbinay waxa uu ka dhex qarxay dawladda Itoobiya iyo sidoo kale kooxda TPLF oo siyaasadda wadanka Itoobiya hogaaminaysay ku dhawaad 3 sanadood ka hor intii aanu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukunka wadankaasi la wareegin 2018. Bishii Juun ee sanadkan, militariga Itoobiya ayaa isaga baxay guud ahaanba gobolka Tigray halkaasi oo ay hore uga tureen dawladdii halkaasi ka talinaysay, markaasi oo lagu eedeeyay inay gobolkaasi ka geysteen ciidamada Itoobiya oo taageero ka helaya kuwa Eritrea dambiyo dagaal oo ka dhana xuquuqda aadanaha.